Fareesku waxay ka mid noqonaysaa maqaayadaha ku yaala wadada Maka Al Mukarrama oo ah wadada ugu mashquulka badan ee ku taala magaalada Muqdisho waxaana ka qayb galay furitaanka maqaayada dadweyne ka kala imaaday magaalada Muqdisho qaab dhismeedka maqaayada ayaa ka duwan kuwii hore ee ku yaalay magaalada waxaana shaqaalaha maqaayada ay yihiin kuwa u diyaarsan soo dhaweynta dadweynaha macaamiishooda milkiilaha furti ayaa ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee ku soo kordhiyay adeegyada ka maqan magaalada Muqdisho qaar ka mid ah dadweynaha ka qayb galay ayaa ka hadlay sida ay u arkaan maqaayadan cusub ee laga furay magaalada Muqdisho. Faraxsanahay xafladan sharafta badan oo aan maqaayadan Fareesco aan noogula sameeyay soo dhaweynta sida shaqaalaha iyo raashinka aadka u dhidhinka badan waan ku faraxsanahay waxaan soo xusiisanay birigii aan jiri jirnay xagga dibadaha iyo aan soo xusiisanay waa maqaaxi oo wax walba ay u dhameystiran yihiin xagga jalaatada iyo waxa macmacaanka beestada iyo wixii uun adduunka laga cuno runtii waan aad ugu faraxsanahay waana mahadsantihiin faraxsanahay inaan ka soo qayb galno furitaanka Fareesco sidaad ogtihiin Fareesco kuma cusba adduunka laakiin waxay ku cusub tahay Muqdisho dadka degan nasiib weyn u yeeshteen dadka degan Muqdisho inay helaan restaurant ama maqaayad oo la tartami karta maanta adduunweynaha maqaayadaha ka furan oo ka kooban cuntooyinka khafiifka ah sida fast food takeaway iyo cashadeena caadiga ah cuntooyinkan bariiska iyo hilibka iyo Soomaaliya sida u taqaan wax walba laga heli kara oo la socota yani cunto tayo leh quality leh service iyo qiimo macquul ah waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladda furitaanka Fareesco oo laga furay isgooska dabka waa markii ugu horeysay aan arkay maqaayad noocan loo furo oo kale loo macnaha loo furay oo xamar laga furay waxaan maqaayado badan aan macnaha aan booqday laakiin waxaan ku arkay service ama shaqo isku dheelitiran oo macnaha aad loo soo agaasimay ugu dambeyn waxaan su'aalo ka weydiinay maamulaha maqaayada Cabdullaahi Maxamed Cusmaan ujeedada waqtigan keentay in Muqdisho laga furo maqaayad ceenkan oo kale waxaan farxad aan ku qabaa inaan qurbo ka imaado aan xamar imaado aan ka furo Fareesco marka waxaan rajaynaynaa inay noqoto maqaayada xamar lagu jeclaado ay ka helaan cunto kasta oo dibadaha ay ka helaan ay ku maqlaan ama ay ka arkaan ama wararka ama meel walba insha Allah waxaan rajaynayaa inay ku raaxaystaan meel kasta ay joogaan dalka Soomaaliya I hope maartay inay enjoy gareeyaan waan ku mahadsantihiin maqaayadaha magaalada ku yaalay maxay kaga duwan tahay maqaayada waxay kaga duwan tahay yani waxyaaba aad ay aqoon Soomaalida sida chicken wingska oo loo sameeyo honey garlic malab iyo tun oo lagu sameeyo pizza oo maartay si live ay u arkaan isagoo loo sameeyo fresh burger sidoo kale oo ay doonaan si walba menu sax ah inay ka dalbadaan cuntadooda Fareesco waxay ka mid noqonaysaa maqaayadaha ku yaala magaalada Muqdisho waxaana shaqaalaheedu ay yihiin kuwa u diyaarsan soo dhaweynta macaamiishooda Zikri Maxamuud Timcade Universal TV Muqdisho